tuurasho وكان كوباده مر لباد برتنka garoonka Cabdilaahi kabtanka kooxda wasaaradda cadaaladda Nasir Ronaldo عودي ayaa ka difaaco dhinaca midig ee ciidanka asluubta oo difaaca ka ciyaaraya waxay iga xasuusinayeen casaan la siiyay ciyaartoyda asluubta lambarka 8 ciyaartoyga Xamsa Jigijaan oo kubadda aad u qaybinayay galabta kaarka casaanka ayaa loo taagay laakiin asluubtu hal gool ayaa ay leedahay qaybtii hore ciyaartu ay dhashatay ciyaartoyga Yaasiin ayaa dhaliyay lambarka 18 Yaasiin Cadaani ciyaarta ayaa ilaa haatan daawadaya hal gool iyo ebera ciyaartoyga Yaasiin Cadaani ayaa khalad lagu galay garsoore Yuusuf oo isagoo ciyaarta dhexdhexaadinaya waa garsoore Ugandhiis oo ajaaniba ciyaartuna waxay ka socotaa Hargeysa Stadium xidhiidhka kubadda cagta ayaa tartankan u qabtay kooxaha isku dhafka loo yaqaan caasimada ka dhisan heerka koowaad iyo heerka labaad iyo heerka saddexaad waana 29 kooxood oo markaasi tartankan ka soo qayb galay si toos ah ayaa Hargeysa Stadium loogu ciyaaray galab walba موليد كيسي ayaa dul taagan waa lambarka afraad ee kooxda ciidanka asluubta ee heerka koowaad waana kabtanka kooxda Axmed Wali Basso eegas ciyaarihii gobolada u ciyaariyay gobolka Saaxil waa keenay kubadaasi mar labaad gool haya ciro koorne ayay kubadaasi u baxday waba ay dhalan gaadho ciyaartoyga Axmed Wali Basso ayaa kubadaasi lugta bidix ku laagay bartanka garoonka free kick goolwadaha ayaa labada adiinka ka saaray waa gool haya ciro waa gool hayaha koowaad ee kooxda wasaaradda cadaaladda ee heerka labaad ciyaartana qaybtii hore hal gool iyo eber ayay maraysaa ciidanka asluubta ee heerka koowaad ayaa la daawadayaal koorniya afraad ayay laaganayaan koorniya afraad oo xidhiidha ayay laaganayaan ciyaartoyda Axmed Wali Basso ayaa soo laagay waa soo gashay dilita la gool kooxda ciidanka asluubta laba ayay ka dhigeen natiijada ciyaarta daawadayaal lambarka afraad ee kabtanka kooxda ciidanka asluubta waa Mawlid Kayse waa ciyaartoyga kabtanka u xidhan madax ayaa uu dhaliyay ciyaartoyga Mawlid Kayse waana kabtanka kooxda ciidanka asluubta ee heerka koowaad waxaana kubadaasi soo dhigay madaxa ciyaartoyga Axmed Wali Basso lambarka shanaad waana ciyaartoy caalami oo ciyaarihii gobolada eegas gobolka Saaxil u ciyaariyay maantana kooxda ciidanka asluubta ayaa u matalaya natiijada ciyaartu waa 2 gool iyo eber walow ciyaartoyda asluubta casaan laga siiyay hal ciyaartoy ciyaartana laba ayaa bay leeyihiin kooxdii casaanka laga dhaliyay waa kooxaha heerka koowaad oo khibrad ku faanaya Hargeysa Stadium waxaad moodaa inay kooxihii heerka koowaad ay la soo baxeen waxyaabihii lagu yaqaanay kooxaha heerka koowaad oo ay noqdeen kooxa markaasi isku dhiibasho fiican kubaddana si fiican u dhalinaya straykarra horumar lana haysta qaybtii hore ciyaarta asluubta ayaa ciyaartoy casaan laga siiyay hal gool bay dhaliyeen haddana ciyaartoygii dibadda markii uga baxay koorna loo dhigay kubad cajiib oo madaxa ayay soo laageen asluubtu Mawlid Kayse oo kabtanka hogaaminaya asluubta ayaa madax ka dhaliyay kooxdii cadaaladda waa lagu cabay galabta qaybtii hore Samatar Xaashi oo wasaaradda cadaaladda Mawlid Kayse waa soo difaaceen ciyaartoyga Saacad Cusmaan Shaafici ku magac dheer ayaa kubadda haysta waa ciidanka asluubta oo maskaxda galabta kubad qaybiyaha waa Axmed Wali Basso ciyaartoyga ugu kubad taabashada badan la qaybtii hore kooxda ciidanka asluubta Axmed Wali Saacad Cusmaan Axmed Wali Basso لاعبين مهارات في علا أيها هيستا تببرة فيصل موسى إلدا فيصل ديري وحنا عياري كوبدا آد كيسكو قد دوه تيكي تاكدا سمتر حاسي أيها كوبدا سيكا عن تورشو توري وعدالتي عيارتويقا تشيلاني عبد الرحمن تشيلاني حمزة كروسو عدالة أيها كوبدا وضطا إيطال باسكا بارباري قيبتي هوري وزارة عدالة هاف سين أيها هيقلين بدل أيها دعيا كوعدي وزارة عدالة أيها بدل كانت تببرة أحمد ياسين حسن ciyaartoyga Cabdirisaaq ayuu keenay Saaq ayaa uu caan ku yahay lambarka 12aad way ciyaartana waxa ka baxay ciyaartoyga Axmed Silva wasoo baaseen mar labaad ciyaartoyga hala ayaa kubadda raacdaynaya goolhaya Ciro ayaa ku soo baxay waana goolhaya koowaad ee kooxda wasaaradda cadaaladda galabta waxaad moodaa in kubaddaasi madaxa ay ka dhalatay khaladka ay lahaayeen difaacu Mawlid Kayse oo keligii kubadda banaan ka helay isagoo ayna cidna ku xidhnayn dabadeedna natiijada ciyaarta ka dhigay 2 iyo eber oo ciidanka asluubtu ay wataan kubadda ciyaarta waxaad moodaa kooxda ciidanka asluubta inay khibrad ku filan la ciyaarayaan oo 2 gool ayay daawadayaan leeyihiin iyagoo ciyaartoy dibadda uga maqan yahay
cayaartuna ilaa haatan waa qaybtii hore oo 2-0 ciidanka asluubta oo heerka koowaad ay ku hogaaminayaan halka gruubka afraad uu yahay daawadayaal gruubka ugu adag tartankan oo ay ku wada jiraan dawladda hoose Hargeysa waa soo galay mar labaad cayaartooyda laga difaacay kubad daciifa koorna ayay u baxday waxaana gruubkan 4 dhibcood leh kooxda dawladda hoose Hargeysa ciidanka asluubta 3 dhibcood leh cayaartan hadday badiyaan waa dul marayaan dawladda hoose oo 6 dhibcood ayaa ay tagayaan halka ay kooxda waa bari dhibc la'aan tahay cadaaladda ayaa 1 dhibic leh cayaartu waxa ay maraysaa daawadayaal imika 2-0 koornihii lixaad baa laagteen ciidanka asluubta oo kubadda waay aragnimo badan la ciyaaraya waa Sacad Cismaan Shaafici waa keenay mar labaad dilinta Sacad Cismaan kubad xirfad la waa keenay laakiin waa koornihii toddobaad ayay u baxday daawadayaal cayaartuna waxa ay maraysaa 2-0 ciidanka asluubta Axmed Walay Baso ayaa koornaha laagaya cayaarta waa la soo laagaya koornihii Axmed Walay Baso ciidanka asluubta soo laagay mar labaad madax waa la keenay Yaasiin ayaa la waayay kubaddaasi isagoo si fiican u ordaya kubad koorna ay ku qaba islaha laakiin waa noqon weyday kubaddaasi cayaartooyda inta badan cayaara kubadda orodka ah ee markaasi kubadda loo adeegsado dhanka weerarka waxaad moodaa inay maanta ay kooxda ciidanka asluubta cayaarta ciyaarayso cayaartooyda labada dhinac ka ciyaaray orod badan ayaa adeegsanaya Mawlid Kaysi ayaa kubadda haysta waa soo baaseen ciidanka asluubta ayaa cayaarta soo bilaabay gool haya Sacad waa soo laagay kubaddaasi bartanka garoonka Axmed Walay Baso ayaa kubadda haysta Sacad Cusmaan waa laga qaatay Samatar Xasho cayaarta dhaxda ka ciyaaraya lambarka 10aad ee cadaaladda ayaa kubaddaasi haysta Shucayb Arsha waa laga qaatay kubaddaasi cayaartooyga Idris Axmed Daanyero ayaa kubadda wata cayaartooyga Idris Axmed waa soo baasay Axmed Walay Baso ayaa loo baasay isku dhiibasho fiican ayaa ciyaarayaan gool wadaha ayaa loo soo bilaabayba kooxda asluubta oo cayaartooy dibadda uga maqan yahay ayaa daawadaya 2 gool la qaybtii hore cayaarta cayaartooyga Xamse Kuruus ayaa kubadda haysta Xamse ayaa kubadda wata cayaartooyga Xamse Nasir Ronaldo ayaa kubadda raacdaynaya Mawlid Kayse oo difaaca ciidanka asluubta ayaa khibrad badan ku ciyaaraya galabta ayaa kubadda difaacanaya cayaartooyga Mawlid Kayse ayaa kubadda cagta ku haya Nasir Ronaldo kubadda waa ay socotaa cidhiidhi waa gashay kubadda cayaartooyda ku hirdamaya cayaarta ayaa socota qaybtii hore daawadayaal halkaad kala socotaana waa Home Cable TV oo Honsat Sports 1 cayaaraha kala ka daawanaysaan kuwa caalamka iyo kuwa geeyiga Afrika iyo geeska Afrika cayaartana de waaba kooxdii asluubta oo markaasi casaan cayaartooy laga siiyey de cayaartu waxaad moodaa inay asluubta oo nin ka maqan yahay hal cayaartooy dibadda uga baxay ay natiijo fiican qaybtii hore soo hooyeen oo 2 gool ay leeyihiin wasaaradda cadaaladda oo cayaartooydu u dhammaystiran yihiin ilaa haatan waxba ayna dhalin waana Hargeysa Stadium waxaana si toos ah uga daawan kartaan Honsat Sports 1 oo cayaarahan loogu talagalay iyo kuwa caalamkaba kooxda cadaaladda ayaa kubadda laga qaatay iminka Axmed Walay Baso waa soo baasay Sacad Cismaan Shaafici ayaa uu ku magac dheeriyay oo lambarka 19aad kubaddaasi waa laga qaatay cayaartooyga Sacad Cismaan Saaqo ayaa wato lambarka 12aad ee cadaaladda cayaartooyga Saaqo waa baasay soo galay kubaddaasi hafsayd ayay noqotay kubadda cayaartooy ayaa keligii loo tuuray isagoo markaasi galay dilinta 18 hafsayd ayaa loo taagay calanka waa soo baaseen asluubta isku dhiibanaya cayaarta lambarka 5aad Axmed Walay Baso Sacad Amiin Coday Axmed Walay Baso isku dhiibasho fiican baa socoto kubad gaagaaban maadaama asluubtu kubad kooxaha heerka koowaad ka tirsan tahay si xirfad la ayaa u ciyaarayaan galabta mar labaad ayaa khalad lagu galay cayaartooyga Halac Bile ayaa kaar ayaa la siiyay cayaartooyga Cabdirisaaq ee lambarka 22aad waa kooxda wasaaradda cadaaladda difaaca dhexe ayaa uu ka ciyaaraya kaarka huruudda ayaa loo taagay cayaartooyga Cabdirisaaq ee lambarka 22aad ee kooxda wasaaradda cadaaladda ee heerka labaad cayaarta ayaad moodaa inay hakad gashay garsooraha awgi
ciyaartooyga halac bile dhaawac ayaa soo gaadhay waa lambarka 10aad ee kooxda heerka koowaad ee ciidanka asluubta ciyaarahana si toosaad uga socon kartaan Honsad Sports 1 iyo Hon Cable TV YouTube-ka iyo Facebook aan ku leenahay si toos ah ayaad ugala socon kartaan studio-ga halkan waxayna gula sugan Hargeysa Stadium ciyaaraha laga soo tabiyay tooska ah waxa jooga cigaalo cameraman-ka Maxamed Gaaban Ibrahim Shiino khubarada TV-ga ka tirsan Hon Cable Way waxa joogta sagal guuro oo ka tirsan wariyaasha TV-ga caalamiga Hon Cable TV Cabdiqaadir Suleymaan Cabdilaahi waa maamulka Honsad waxa kale oo jooga Engineer Daus waxa kale oo jooga Cabdisalaan Yaambaro isagu farsamo yaqaanka ciyaaraha inoo tabinaya sida oo dhanka kamarada inoo qaabilsan anigoo Mubaarak Maxamed Cabdi Bukaasana waa idila socodsiinaya ciyaarta qaybtii hore ayaa gabagaba ku dhow daawadayaal 2 gool iyo eber bay iska leeyeen kooxda ciidanka asluubta hal ciyaartooy ayaa dibadda looga saaray ciyaarta oo ka tirsan kooxda asluubta casaan baa la siiyay waa Xamsa Jigijaan lambarka 8aad ciyaarta waa gabagaba qaybtii hore Idris Tanyero ayaa kubadda soo laagaya waa galeen mar labaad ciyaartooyda waa la keenay dilinta Saad Cusmaan baas Saad Cusmaan la kubaddaasi waa siga ciyaartooyga Saad Cusmaan waa baxday kubaddu qaybtii hore ciyaarta ayaa gabagaba daawadayaal Hargeysa Stadium ay ciyaarahan si toos ah inooga yimaadaan qaybtii hore waa ay dhamaatay daawadayaal waxaana lagu kala nastay 2 gool iyo eber Hargeysa Stadium iyadoo ciyaartan ay wada ciyaarayeen kooxda heerka koowaad ee ciidanka asluubta iyo kooxda heerka labaad ee wasaaradda cadaaladda oo midabka casaanka ku ciyaaraysay waxayna ka wada tirsan yihiin group D ama groupka afraad ee dhimashada waxaana groupka ku wada jira daawadayaal kooxda dawladda hoose Hargeysa wasaaradda cadaaladda iyo kooxda Waaberi ciyaartuna waxay ku dhamaatay 2 iyo eber qaybtii hore ayaa la kala nasanaya daawadayaal isku soo noqod wanaagsan صعبنا هالوقتو صعبنا هالوقتو قولين عبد ودود رشقة شو هذا صعبنا هالوقتو waayahay daawadayaal waayahay bismillaahir raxmaanir raxiim waa falanqaynta ciyaarta daawadayaal si toos ah ayaad ugala socotaan Hon Cable TV Honsad Sports 1 ayaad ciyaaraha kala socotaan xasan falanqayntooda inoo qaabilsan kana tirsan wasaaradda ciyaaraha ee Somaliland ayaa bal ciyaartan wax ka weydiinayna isagoo si toos ah marka ciyaartan socota xasan waxaan weydiinayaa bal ciyaarta qaybtii hore sida ay u dhacayso iyo bal ciyaarta waqti xasaasi iyo groupkii afraad ee dhimashada lagu wada jiro bal ciyaarta bal ka yar faallo horta aad iyo aad baad u mahadsantahay ciyaartan waa ciyaar aad xasaasi u ah waana ciyaar groupkan waa group aad u adag oo dawladda hoose hadda 4 dhibcood ayay tagtay markii ay daraad badiyeen labadan kooxood ee Faysal Dheere iyo hadba la kuuriyay asluubta
waa aad u adag iminkana waxaad garsooraha labada saddexda garsoore haya garsooraha dhexe waa garsoore ugandheysa waa garsoore si wanaagsan wada laakiin ciyaarta waxaad moodaa xamaasadeedu inay yara kululaatay oo kadib markuu inan asluubta uu feer toosa uu ku dhuftay markaad ciyaartaan eegaynay taasina ay tahay casaan caadiya mar hadduu dhaco sida ay sharcigu ay kubadduba ay qabto intentional foul waxaad ula jeedaa foul bareera bareeraan ula jeedaa marka lugti gacantiina uu gacna adag buu ku dhufto toos bay ahayd taas isaga naftiisu kama murmayaan garsooruhuna runtii ciyaarta waxaad moodaa in ciyaartoydu ay nin walba uu doonayo ninka kale inaanu kubadda la dhaafin dabeetana uu doonayo inuu jalaafo yalow aad arkayso laba yalow ay durbaba qaateen cadaaladdu marka ciyaartu waa ciyaar adag saddexdan dhibcood waa saddex dhibcood lagu hirdamayo waa saddex dhibcood ay doonayaan gruubka inay gaadhaan dawladda hoose la sinmaan maadaama markii hore ay dhibcin lahaayeen marka 45 daqiiqo ee dambe oo imika dabayshu dhinacana ay u socotaa way dhici kartaa isluubta nin baa la dheeryahay inay ka faa'iidaystaan iyo inay labadooda gool ay xajistaan goolal kale ku daran labadaba wax dhici karaa marka waxaan eegi doonaa qaybta dambe ciyaarta insha allahu tacaala waayahay xasan wax ciyaartoyga foulka galay kaadh casaana la siiyey ma ciyaartan oo qura ayuu fadhiyayaa guddida anshaxa waa joogaan oo xidhiidhkii waa joogaan wasaaraddii waa joogtaa mise sida xeerka ciyaarta ayaa la waafajinaya caalamiga ee tartankeena kolley wixii baa la waafajinaya taana waxaa ka warrami kara uun marka ay soo saaraan xidhiidhku insha allahu tacaala markaa taa ka hor dhicin kari maayo waayahay agaasimaha ayaa jooga isaguna agaasime maxamed bal waxaan weydiinayaa cayaarta galabta waa uu ka soo qayb galay cayaarihii horena si toosa ayaa uga qayb qaadanayey ka wasaarad ahaan bal sideed u aragtaan oo xidhiidhku soo qabanqaabiyeen markaa heerarkan isku dhafan ee kala duwan ee caasimadda wallaahi waxaan u aragnaa wasaarad ahaan kolley dee ka mid baanu nahayoo xidhiidhku waa baart ka mid ama waa qayb ka mid a wasaaradda waxaanu aragnaa inay ciyaaro fiican aanu soo abaabulnay oonu dhallinyarada doonayna inaannu isku dhex gelinno oo aanu kula dagaalanno qabyaaladda iyo tahriibka iyo waxyaalaha aan dhaqanka wanaagsanayn waxaana ka qayb geliyay disaad ogtaba 29 kooxood ciyaartan maanta la wada ciyaaraya waxaa wada ciyaarayay kooxda cadaaladda iyo kooxda u ciyaarta asluubta ciidanka asluubta waana laba kooxood oo labaduba gruub isugu jira ciyaar fiican baana haaftiinkii hore soo bandhigeen ciyaaruhuna waa barcad iyo bermado oo la kala madiyaa labada kooxoodba iyo taageerayaashoodaba waxaan ku dhiirigelinayaa inay bahasha laysu haneeyo haddii la kala awood batana aan la isxagxaganin waayo ciyaartu waxa weeyaan shuruuc baynu ku hagaynaa shuruucda guddidii baa fadhida farsamada garsoorkii baa haya guddidii dacwada iyo anshaxa iyaduna joogta qoraallaa la samaynayaa cid walba wixii ay hesho ayay leedahay sharci ku dhigayo waayahay waxaan weydiinayaa agaasimaha waaxda cayaaraha wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland waxaa jira kooxaha heerka koowaad way og yihiin qawaaniinta tartanka maadaama iyaga tartan gaara wasaaraddu iyo xidhiidhkuba u qaban jireen kooxahan heerka labaad iyo heerka saddexaad maadaama ay ku cusub yihiin xeerka iyo qawaaniinta wasaaradda iyo tartan noocan oo kale ah iyaga miyaan inta shir jaraa'id loo qabto ama xidhiidhku u qabto ama wasaaraddu qawaaniinta iyo shuruucda tartankani leeyahay loo sheegi karin maadaama ayna hore u haysan dhanka tababarayaashoo kale ama ciyaartoyda oo shir jaraa'id loo qabto oo meel wax loogu baahiyo shuruucda iyo qaanuunka tartankan iyagoo horeba u ogaa haddana kooxaha heerka koowaad way kaga actifsan yihiin dhanka shuruucda qawaaniinta ciyaarahan kolley ciyaaruhu maanta waa international waa global wey ciyaaro fara badan oo adduunyada baa jiro la daawado shuruucdii baa youtube-ka laga helaya laakiin taa waxaaba dee ka sii fiican wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha iyo xidhiidhka kubadda cagta jamhuuriyadda Somaliland 29 kooxood loo qabanayaaba way ka duwan gashay 29 shuruucdii iyo xeer hoosaadkii lagu dhaqayay qolo walba waa la sii waana saxiix ma lagu fulin doonaa markaa shuruucda iyo qawaaniinta waa lagu fulinayaa waa kuwan ciyaaraaba maanta lagu wado ee dadka lagu ganaaxayay kii ganaax mutaystay la ganaaxayay ganaax dhexe iyo ganaax xooga iyo kala leeyihiin marka ciyaaraha shuruuc baa lagu maamulaa law of the game kaasun baa lagu maamulayaa waana sharciguna waa laba qaybood oo waa mid international iyo mid local ama mid caalami ah iyo mid waddanku iska leeyahay marka labadaba waa lagu maamulayaa xiriirka iyo guddida farsamada iyo nidaamkoodaas aanay u taallaa iyo guddida dacwadaha kolba wixii meesha ka socdana waa indhaynayna anaguna dushaan ka taagan aad baan u socdaan sida ciyaaruhu u socdaana waa si fiican dhalinyarada ka soo qayb gashay oo bogaadinaya waxay soo bandhigeen waayo aragnimo iyo karti iyo adkaysi iyo aqoon ciyaaro u leeyahay soo bandhigeen TV-ga caalamiga Hon Cable TV waxa uu ku deeqaa week walba markuu tartanku wareegii koowaad waa la bixiyay jaayisad ama award wax loo yaqaan waxa week walba ka ballanaya inuu ku deeqa jaayisadaasi marka ciyaartoyga ugu wanaagsanaa iyadoo ay soo xulayaan xidhiidhka iyo guddida anshaxu
sideed u aragtaa dadweynaha caasimaddu waa soo dhaweeyeen maxaa ku dhiirigelinaysa shirkadaha kale ee la mida marka telefishinka ama shirkadaha Farxaan Faco Holdings wallahi horta aad iyo aad baan u amaanayaa shirkaddan company-gan Home Cable ama Faco Company oo mulkiilaheeda yahay Farxaan agaasimana uu ka yahay Maxamed Cabdi Ilig aad iyo aad baan labada nin iyo shaqaalaha Home Cable TV u hambalyeynaya sida fiican ee ay hawsha ee tabaruca ah ee live-ka ay u sii deynayaan ama tooska looga daawanayo caalamka oo dhan waxaan leeyahay shirkadaha kale ee waaweynaha ku daydaan shirkadda caalamiga ee maanta live-ka u sii deynaysa ciyaarihii waddanka ka socday ee dhiirigelinaysa dhallinyaradii waayo waxay ku dhiiradeen xitaa inay iyadoo ay arrinkaa qabteen oo ay hagaajiyeen oo ay tartankii live dadkii ugu sii deynayaan oo la daawanayo caalamka meel walba ayaa haddana waxay ku dhiiradeen inay dhallinyarada inankii stageka ama gruubka inta ciyaari soo socdeen inankii ugu akhlaaqda fiicnaa ee akhlaaqdiisii ay dadka oo dhan qancisay guddidii farsamada iyo cadaaladda iyo maxaanku idhaahdaa anshaxa iyo dadkii korjoogtada ahaa iyo xidhiidhkaba ay qancisay in la siiyo abaalmarin dhallinyarada kalena waxaan rajaynayaa in abaalmarintaa ay iyaguna ku tartami doonaano sida dhallinyaradii hore loo siiyey iyagana kuwa ugu fiican loo siin doono insha Allah Abdullaahi daawadayaalkaasi waxa uu ahaa Maxamed Muuse Nuux oo isagu ka tirsan wasaaradda ciyaaraha agaasimana ka waaxda ciyaaraha oo tartanka si toosan ugala qayb qaata waa uu mahadsan yahay waa barnaamijkii falanqaynta ciyaarahan anigoo Mubaarak Maxamed Cabdi Bukaasa ayaa idila socodsiinaya mahadsanid كيبال ودامركا ديرتهي البويا هاي عدالة وهرسين ديرتهي البويا هاي عدالة وهرسين وغاندا كان وايسايا وكيبال ددكا اسكالي وكيبال ددكا اسكالي وكيبال ددكا اسكالي وكيبال ددكا اسكالي ديرتهي البويا هاي عدالة وهرسين heerka koowaad ciyaartana qaybtii dambe ayaa la isku soo noqday ciyaartooyga Saacad Cusmaan Shaafici Saacad Cusmaan Saacad kubaddaasi ciyaartooyga Saacad Cusmaan ayaa waa kubaddaasi la faawalay laakiin lama qaban ciyaartooyga Saacad Cusmaan waa ciyaartooyga dhaxda ka ciyaaray kooxda ciidanka asluubta ciyaartooyga dhaxda ka ciyaara ciidanka asluubta kooxda cadaaladda ayaa kubadda cagta ku haysa daawadayaal waxaad la socotaan qaybtii dambe ayaa la isku soo noqday tartanka xidhiidhka kubadda cagta Jamhuuriyadda Soomaaliland soo qabanqaabiyay kooxaha isku dhafka shirkadda Telesom ayaa maalgelisay Home Cable TV-na waxa ay ka tahay baahintan inay iyaduna si toos ah ugu deeqdo ciyaartan ayaa soo noqotay qaybtii dambe oo la isku soo noqday qolka labiska ama nasashada waana kooxaha cadaaladda oo heerka labaad iyo kooxda ciidanka asluubta oo heerka koowaad ciyaartuna waxa ay maraysaa 2 yeeber oo qaybtii hore la kala dhashaday waxa iga xusuusinaa ciidanka asluubta hal ciyaartooy ayaa dibadda looga saaro red card la siiyay ama casaanka kaarka guduudan dabadeedna ciyaartii waxay lagu 9 ciyaartooy baa haystaan ciidanka asluubtu iyo goolwadaha 10 ku ah iyo halkan dhankan kale oo kooxda kale ay tahay 11 ciyaartuna si toos ah ay noogu socotaa imika waa soo difaacin ciidanka asluubta oo culays badan saareeyay maadaama hal ciyaartooy ka maqan yahay laakiin ciyaarta ayay iyaguna haystaan oo 2 gool ay dhashadeen qaybtii hore si toos ah ay ciyaartan inoogu socotaa iyadoo idinka imanaysa stuudiyaha Home Cable TV Hargeysa Stadium ka socda Honsad Sports wana si toos ah ay ciyaarahan uga daawanaysaa أحمد ولي بصو أيها كوبدا عيسى عيارتويغا وردي لمبركا كوبيا لباتنات لاق دير باكيني كوبدا سي ياسين عداني برا عديني يو كوحدا اسلوبتا واكاتو روشي كوبدا سي حرفض عيارتويغا ياسين عداني وويركا قيبتو را عيارتنا هل جول اياو دلي هالكا جول اي كولا اسلوبتنا واحد دلي عيارتويغا موليد كيسي دانيرو إدريس أحمد والله قد في كوبدا سي تشيلنا ايا هيستا عيارتويغا تشيلنا والله باسي عبد الرزاق غارشا رونالدو ناصر رونالدو
cabdiraxiin derder waa keenay cayaartooyga naasir ronaldo naasir waa soo galay naasir kubaddaasi waa laga difaacay sacad cusmaan shaafici ayaa ka difaacay waana kooxda ciidanka asluubta cayaartuna daawadayaal waa qaybtii dambe laysku soo noqday garsoore yuusuf oo hore aan idinku sheegay waa garsoore ajaanib oo dalka uganda ka soo jeeda waa garsooraha koowaad ee cayaarta garsoorka labaad waa cawil garsoorka saddexaad waa cabdi gurey garsooraha afraad ee substitutka iyo beddelka inoo qaabilsanna waa garsoore maxamed axmed jaamac cayaartuna si toosa ayay hargeysa stadium uga socota waa soo dhiibteen mar labaad axmed walay baso waa soo galay yalla shuhaada axmed وكبداسي ضيعay بس waa soo galay yalla shuhaada ahmed marka shanaad ee kooxda ciidanka asluubta kooxda heerka koowaad ee markaas ciidanka asluubta waa gruubka dhimashada ee gruubka afraad gruub D waxa ku wada jira dawladda hoose Hargeysa ciidanka asluubta wasaaradda cadaaladda iyo kooxda Waabari ciyaartuna waxay ka socotaa Hargeysa Stadium waa soo laagay goolhayaha soo laagay kubad dheer oo saaxiibkii u baasay nasiib darro gacmaha haduu ku qabsaday isaga ayaa penalty lagu qaban la ciyaartana ilaa haatan waxa wadata kooxda cadaaladda oo weerar fiican qaybtii dambe la isku soo noqday haysa naasir ronaldo ciyaartooyga cabdiraxiin derder ayaa kubaddaasi laagay kubaddaasina waa ay baxday daawadayaal ciyaarta waxa studio-ga ciyaaraha aan idinka soo tabinayna ee Hon Cable TV oo si toos ah imika inoola fadhida sagal guuro oo ka tirsan wariyaasha TV-ga caalamiga Hon Cable TV oo ciyaarahan iyaduna si toos ah nogala qayb qaadanaysa galabta ciyaarta ayay si toos ah ula socotay ilaa intii ay bilaabantay dhankayga midig ayay fadhida iyada ayaan bal ciyaarta bal wax ka weydiin doonaa iyadoo si toos ah ula socota ciyaarahan oo kala socota studio-ga ciyaarahan ka socdaan oo Hargeysa Stadium nagu soo booqatay galabta ku soo dhawow sagal aad iyo aad bad u mahadsan tahay walaalkii mubaarig runtii halkan waxa ka socota ciyaar qurux badan oo aad u cajiiba walowbay hogaaminayso kooxda asluubtu oo 2 iyo eber ay tahay haddana waxaa garoon ka socota ciyaar aad u qurux badan laakiin waxaad moodaa mubaarigow inay kooxda cadaaladdu hadda ay dardar soo qaadeen isla markaana ay iska caabinayaan ay isleeyihiin bal haatan idinkuna meesha aad guul kala hoyataan qaybtii dambe ee la isugu soo noqday walow haafkii hore ku dhamaaday 2 gool iyo eber uu ku dhamaaday bal waynu eegi doonaa inta haafka dambe ciyaarta lagu guda jiro waxa halkaasi ka soo cusboonaada ama labada koox sida ciyaartaasi ku dhamaatay laakiin ciyaar aad iyo aad u qurux badan ayaa garoonka ka socota waxaan bal ku weydiinay ciyaartooy baa dibadda looga saaray kooxda asluubta khalad bareer ayuu ku sameeyay gacan jiqil ayuu ku dhuftay gacantiisa midig ciyaartooygii kooxda wasaaradda cadaaladda sideed u aragta kaarka casaanka la siiyay ma khalad baa u ahaa mise garsooraha ayaa ku saxsanaa wallahi mubaarigow haddii aan eegno ciyaartooga casaanka la siiyey kooxda waxay sheegaysaa kooxda asluubtu waxay sheegaysaa in ayaga laga khaldanaa oo maxay dhahdaa ay khaladka uu khalad ahaa casaanku laakiin bar waxaynu eegaynaa garsoorku waxa uu ka yiraahdo marka ciyaartu ay dhamaato waayahay waa sagal guure oo ka tirsan wariyaasha TV-ga caalamiga Hon Cable TV oo booqasho nagula joogta studio-ga ciyaarahan idinka imanayaan Honsat Hargeysa Stadium ciyaartan ayay markaasi wax ka weydiinayna daawadayaal ciyaarta ayaan ku soo noqonaynaaye ciyaarta imika half side baa dhacay ciyaartooyga lambarka 18 Yaasiin Cadaane ayaa galay dabadeedna imika waxa bilaabaya ciyaartooydii cadaaladda oo iyagu 2 gool lagu leeyahay waxaase galabta mucjisa in ciyaartooy casaan laga siiyo kooxdii asluubta haddana iyagu guushi ay wataan maadaama waxyaabahaasina waa waxyaabaha isboortiga dhalinyarada caasimadda iyo kuwa dalkaba dhiirigelin u ah maadaama isboortigu uu yahay waxa keliya ee markaasi lagu kala reyn karo ee guulaha iyo guuldarraduba ay iman karaan ciyaartana iminka waxaad moodaa kooxda asluubta inay si fiican u tababaran tahay tayo fiican leedahay ciyaartooyga axmed wali baso ayaa kubadda wata waa soo galeen mar labaad kooxdii asluubta waa isku dhiidhiibanaya ciyaartooyga axmed wali baso waa keenay mar labaad kubad catiiba ciyaartooyga halac bile ayaa qalad galay ma uu dhalay kubaddaasi isagoo ordaya ayaa uu kubadda raacdaynaya laakiin dhulka ayaa uu ku dhacay axmed wali baso ciyaartooyga player of tamaadka galabta ugu wanaagsan kooxda ciidanka asluubta waa lambarka sanaad ee kooxda heerka koowaad aan idhaahday ciidanka asluubta horey waxa ugu ciyaaray ciyaarihii gobolka saaxil axmed wali baso waa lambarka sanaad waa maskaxda galabta kooxda ciidanka asluubta waana kubad qaybiye dhaxda ayuu ka ciyaarayaa oo ciyaartooyda dhaxda kala dheelaya waa halac bile iyo ciyaartooyga sacad cismaan shaafici ku magac dheer ciyaartana qaybtii dambe la isku soo noqday
walow itaal fiican uu ka muuqdo kooxdii wasaaradda cadaaladda midabka casaanka ayay ku dheelayaan waa koox heerka labaada balse nasiibkeedaa siiyey inay ku jirto gruubka dhimashada ee tartankan heerka koowaad ee tartankan gruubka waxaa ku jira kooxda ciidanka asluubta kooxda dawladda hoose ee hargeysa labada kooxood waa heerka koowaad wasaaradda cadaaladda oo gruubka ku jirta waa heerka labaad waa beri oo gruubka dhibca la'aan dhex fadhidaana waa heerka saddexaad cayaarta gruubkan markaa kooxdii badisa ayaa gudbi doonta oo wareegga saddexaad iska xaadirin doonta cayaarahan hargeysa stadium ka socda waa cayaaraha ay soo qabanqaabiyeen xidhiidhka kubadda cagta jamhuuriyadda somalilan iyagoo markaasi u qabtay kooxaha isku dhafka ah ee heerka koowaad heerka labaad iyo heerka saddexaad shirkadda telesom ee isgaadhsiinta ayaa maalgelisay halka telefishinka caalamiga ah oo cable t v-na baahinta uu qayb ka yahay inuu si toosa markaasi u baahiyo honsad sports one ayaad cayaarahan kala socon kartaan oo iyaguna kuwa caalamka iyo kuwa dalka geyiga soomaalida iyo geeska afrikaba loogu talagalay ayaad si toosa honsad ugala socon kartaan maamulka honsad oo uu ka mid yahay cabdiqaadir suleymaan cabdilaahi waa cabdiqaadir codaye ayaa isaguna markaasi baahintan lifeka inoogu jira ismaaciil snuubi ayaa inoogu jira oo isaguna honsad ka mid a cayaarta ayaa iminka gacan tuurasho ciidanka asluubta ayaa tuuranaya galabta si fiican ayaa cayaartu inoogu socotay qaybtii hore daawadayaal walow cayaartu in 5 daqiiqo ku dhow la hakad la geliyay maadaama cayaartoy dhaawac halisa uu gaadhay oo casaan lagu qaatay jiqil kadib markii uu jiqilka ama suxulka uu ku dhacay cayaartoyga ciidanka asluubta ayaa geystay ka bacdi casaan baa dhacay ciidanka asluubta haddana isma ay dhiibin oo 2 gool ayay leeyihiin yaasiin ayaa kubadda raacdaynaya goolhaya cirra waa soo baxay labada gacmood ayaa uu kubadda ku qabsaday waa goolhayaha koowaad ee kooxda ciidanka asluubta goolhayaha koowaad ee kooxda ciidanka wasaaradda cadaaladda waa goolhaya cirro halka ciidanka asluubta goolka uu hayo goolhaya sacad cayaartoyga naasir ayaa kubadda raacdaynaya waa naasir ronaldo rikore ayaa la qabtay penalty garsooraha ayaa cayaartoyda ayaa ku dhegsan muran ayaa ka dhacay garoonka daawadayaal labada garsoore ayaa wada tashanaya waa garsoore yuusuf iyo garsoore cawilo calaamadaha cayaarta hakad ayaa la geliyey xamaasad ayaa galabta ka jirta hargeysa stadium maadaamay daawadayaal aad u fara badan ka soo qayb gelayaan cayaarahan hargeysa stadium ka socda kooxda wasaaradda cadaaladda ayaa taageerayaal aad u fara badan haysato oo ku dhawaaqaya markaas sidhu wale cadaaladda buuq iyo sawaxan ayaa ay ku dhawaaqayaan aad u fara badan taageerayaasha cadaaladda rikore penalty ayaa la dhigay goolkulaad kooxda cadaaladda ayaa laaganaysaa kooxda cadaaladda khalad ayaa lagu galay cayaartoyga naasir ronaldo waa lambarka 9aad ee weerarka kooxda wasaaradda cadaaladda ee heerka labaad waxay heleen goolkulaad rikore ayuu nasiibku u siiyey kadib markii labada garsoore ay wada hadleen ee go'aan ay gaadheen waxa la qabtay rikore goolkulaad waxa loo yaqaano ama penalty kick cayaartuna waa 2-0 kadib markii cayaarta qaybtii dambe la isku soo noqday kubad fiican ayaa cayaarayaan kooxdii cadaaladda ee heerka labaad daawadayaal aad u fara badan ayaa gool ku dhawaaqaya oo taageersan kooxda cadaaladda ee heerka labaad miyaa ay dhalin doonaan daawadaal mise waa ay dayici doonaan waa cayaartoyda heerka labaad ee cadaaladda oo rikoore helay qaybtii dambe cayaarta oo bilowa hargeysa stadium ayaa cayaartani ka socota waxaana aad ka fiirsanaysaan tv-ga caalamiga hon cable t v honside sports wana cayaarahan ayaad kala soconaysaan cayaartoyga cadaaladda ayaa rikoodhaha laagaya shuuf waa laagayaan cayaartoyda rikoodhaha waa cayaartoyga cadaaladda waa cayaartoyga lambarka 9aad waa cabdiraxiin derder lambarka 11aad cabdiraxiin gool la hakad ayaa la geliyey waa garsooraha ayaa ku celis baa dhacay daawadayaal waa lagu celinayaa cayaartoyga ayaa laynkiisa ka dhaqaaqay sidhigana ma uu sugin daawadayaal iyo taageerayaal aad u fara badan ayaa taageersan nasiibka kooxda cadaaladda cayaartoyga ayaa laagaya lambarka 6aad xamse kuruus baa loo dhiibay iminka cayaartoyga xamse kuruus gool kooxda cadaaladda ayaa gool dhalisay daawadayaal 2-2 ayaa cayaartu maraysaa wakhtiga xamaasadda ayay gashay cayaartu kooxdii cadaaladda ayaa qaybtii dambe ka daba timid kooxdii heerka koowaad ee asluubta
oo 2 gool ku naaloonaysay cayaartuna waa 2-1 cadaaladda ayaa 1 gool leh 2 goolna waxaa la kooxda ciidanka asluubta bedel ayaa dhacaya cayaartoyga shuushuu ayaa garoonka soo gelaya lambarka 20aad ayaa garoonka soo gelaya waxaana baxaya cayaartoyga tiilane lambarka 13aad ayaa cayaarta dibadda uga baxaya shuushuu ayaa garoonka soo galay cayaarta waa 2-1 waqtigii qaybtii dambe ayaa maraysaa cayaartu ciidanka asluubta 1 nin ayaa ka maqan 10 nin ayay ku cayaarayaan 2 gool ayay leeyihiin tarabuune aad u fara badan ayaa aad u dhawaaqaya cadaaladda ayaa ay ku dhawaaqayaan oo taageersan yihiin cayaartuna waa ay socotaa baas fiican seexato kubaddu waa ay ku lulaatay cayaartu daawadayaal si toosa yaasiin cadaani baa loogu baasay kubaddaasi laaga dheer waa laga soo difaacay cayaartoyga shuushuu baas ayaa ciyaaraya cabdiqani arsha شعيب أرسا والله قدير باكين يسوقنا قرون كبرتكيسة كبدو واي سعطة واي سو سعطة واسوقلي ناصر رونالدو يا كبد الرعدينية قاعد تورشا يا عيدا كاسلوب تلقوا تورونا يا مرلبات عليس بدن بافولي كوحلي توبره فيصل موسى إلدب وفيصل ديري عيارتنا واحد مودين لو ريجين كوحدة عدالة جول أي كل واقع تاجر ياسا تاجر سن كوحدة هيرك اللبادة وزارة عدالة hargeysa stadium ayay cayaartu ka socotaa si toos ah waxaad uga fiirsanaysaan oo ka daawanaysaan TV-ga Hon Cable TV shaashada Hon Sports oo cayaaraha loogu talagalay si toos ah ugala socon kartaan Facebook iyo YouTube-ka baraha bulshada aan ku leenahay daawadayaal waad ka hadda ayaad si toos ah uga daawan kartaan natiijada cayaartu waa isbedesho qaybtii hore 2-1 baa ku nasteen ciidanka asluubtu balse waxaa nasanin kooxdii deynta lagu lahaayo waa iska soo guday 1 gool oo gool kulaada ama record penalty ayaa ay heleen waxaana saxiixay cayaartoyga lambarka 6 ee Xamse Kuruus ku magac dheer waa cayaarta ayaa imika 2-1 maraysa waa keeneen mar labaad kubaddaasi cayaartoyda keenay kubadda cayaartoyga cadaaladda soo laagay balse nasiibka ayaa keenay dibadda ayay cayaartu kubadda uga baxday waa soo bilaabayaan ciidanka asluubta waa soo laagay cayaartoyga wardi yaasiin ayaa loo baasay laag dheer laakiin waa ay baxday kubaddaasi cayaartu waa kulushahayo maadaama ay gool keeneen kooxdii cadaaladda oo markii hore la niyad jabsanaa awoodda ciidanka asluubta oo 2 gool loo horumaray nasiibka ayaa siiyey gool kulaad ama penalty waa dhaliyeen 2-1 bay noqotay cayaartu waa kululaatay daawadayaal aad u fara badan oo taageersan marka kooxda cadaaladda ayaa halkan kaga dhawaaqaya gool waxaba aad moodaa inay isla shaqaynayaan iyaga iyo cayaarta tababare Axmed Yaasiin Xasan bedel ayaa uu sameeyay waa kooxda heerka labaad ee cadaaladda tababarahooda waxa uu bedelay cayaartoyga Jiilane lambarka 13aad cayaartoyga Shuushu oo lambarka 20aad ayaa uu keenay oo dhaxda ka ciyaaraya ciidanka asluubta culays badan ayaa fuulay maadaama hal cayaartoy dibadda uga maqan yahay oo casaan laga siiyey Sacad Amiin Coday ayaa kubadda haysta Cabdirixiin derder handball ayay ku dhacday Sacad Cismaan bay kaga dhacday waxa helay mar labaad cayaartoydii kooxda cadaaladda way laaganayaan foul garoonka bartankiisa cayaartoyga Iidle ayaa soo galay Axmed Iidle lambarka 17aad ee kooxda cadaaladda cabdirixiin derder ayaa cayaarta dibadda uga baxay daawadayaal garsooraha afraad ayaa bedelay oo calaamadda sabistiyuudka inoo qaabilsan bedelka waa garsoore Maxamed Axmed Jaamac waa soo laageen mar labaad Samatar Xaashi goolwadaha ayaa qabsaday cayaartu waa kulushahay waqtigii dambe qaybtii dambe si xasaasi ah goolkaasi marka uu dhashay waa isbedeshay waxoogaa dhiiga ayaa soo galay cayaartoydii kooxda cadaaladda midabka casaanka ku ciyaarayay firfircooni badan dhaxda ayay si fiican u maamulanayaan إدريس أحمد دانيير والله قد ضفي عيارتويga kubadda haysta waa cadaaladda waa Xamse Kuruus oo kubaddaasi Xamse Kuruus isagoo cidna aan u fiirsan ayaa kubad dheer uu tuuray goolwadaha ayaa nasiib u yeeshay ciidanka asluubta Sacad waa soo laagay gool haya Sacad kubad xoogan bartanka garoonka soo gashay kubaddaasi gacan tuurasho seexata ayaa tuuraya lambarka 23aad ee cadaaladda cayaartoyga waxa haysta wardi ciidanka asluubta kubad xirfad la soo laagay waa soo difaaceen mar labaad kooxdii cadaaladda waxa ka fiican oo waxay ciyaarayaan aan idhaahday kubad fiican oo tabaabusho fiican oo isku dhibashada ayayba ku dadaalayaan qaabka kubadda la isugu dhiibanayo oo dhinac ilaa dhinac la geynayo cayaartoyda asluubta ayaa kubadda wadata Yaasiin waa laga difaacay kubaddaasi Cabdilaahi iyo lambarka sanaada waa kabtanka kooxda wasaaradda cadaaladda ayaa ka difaacay ciidanka asluubta ayaa koornihii 8aad daawadayaal laaganaya
oo iyagoo ku ciyaaraya 10 nin ay garoonka gudaha ugu jiraan maadaama casaan laga siiyey qaybta hore ciyaartooyga xamse jigijaan ee lambarka 8aad bedel ayaa la keenay tababare Faysal Muuse ayaa keenay ciyaartooyga lambarka 14aad waxaana baxaya Sacad Cusmaan Shaafici waa ciyaartooyga lambarka 19aad ee dhaxda ka ciyaaraya kooxda ciidanka asluubta heerka koowaad daawadayaal ciyaarta ayaa 2-1 maraysa koornihii 8aad ay laaganayaan ciyaartooyda ciidanka asluubta ciyaartooyga lambarka 14aad ayaa garoonka galaya daawadayaal aad u fara badan oo taageersan aan idhaahdee taageerayaal aad u fara badan oo Hargeysa Stadium ku sugan ayaa iminka cadaaladda taageersan bedel ayaa dhacay ciyaartooyga Sacad Cismaan ayaa baxay waa ciyaartooyga kooxda lambarka 19aad ee ciidanka asluubta ee heerka koowaad waxaana galay ciyaartooyga lambarka 14aad ciyaarta hakada ayaa galay ciyaartooyga kabtanka waa ciidanka asluubta ayaa garoonka bartankiisa yaala salamaad dhulka ayaa u yaala dhaawac ayaa soo gaadhay waa kabtanka kooxda ciidanka asluubta Mawlid Kayse oo qaybtii hore ciyaarta gool madax oo dhaliyay garsooraha ayaa go'aan gaadhaya garsoore Yuusuf oo garsoore Ugandhiisa oo tartankan marka ciyaartii shanaad oo xidhiidha afraad idhaahday dhexdhexaadinaya waa soo laagay Axmed Walay Baso koornihii waa la keenay ma dhalan doona ciidanka asluubta way baxday kubaddaasi kubad ayaa dhaxda ka noqnoqotay oo si xoogan ayaa la isugu celiyay dabadeedna ciyaartooyga waxa laagay Sacad Amiin Coday waa ay baxday kubaddu Cabdirasaaq kubaddaasi garsooraha ayaa hakad geliyay mar labaad galabta waa ciyaar xamaasad leh waxaana aad moodaa ciyaartu inay meel adag ay marayso Cabdirasaaq ayaa laagaya ciyaartooyga Cabdirasaaq kaar huruda ayaa u qaatay qaybtii hore waa lambarka 22aad ee kooxda cadaaladda difaaca ka ciyaaraya Axmed Walay Baso ayaa kubadda haysta waa laga qaatay ciyaartooyga Xamse Kuruus Nasir Ronaldo Shacayb Arsha ayaa kubaddaasi keenay Idris Axmed Danyeero ayaa ka difaacay ciyaarta waxaad moodaa in la isku dhageeyay galabto oo ciyaartooyda asluubta ay godka biyo ugu galeen qaybtii dambe iyagoo weerar lagu yahay hal ciyaartooyna la dheer yahay gacan tuuranaysa kooxdii wasaaradda cadaaladda Samatar Xaashi lambarka 10aad ayaa soo tuuray kubadda ciyaartooyga Xamse ayaa soo galaya Xamse yar ee lambarka 11aad ee kooxda ciidanka asluubta waxaana baxaya Wardi lambarka 22aad ciyaartooyga Wardi ayaa baxaya daawadayaal oo ciyaarta dibadda looga saaraya bedel ayaa uu keenay tababare Faysal Muuse Ildab waa tababaraha ciidanka asluubta oo khibrad ku filan leh waana tababarayaasha loogu cabsi qabo tartankan inay ku guuleystaan tababarayaal aad u fara badan oo heerka koowaad oo cajiib ayaa tartankan ku jira waxa iga xusuusina tababaraha gaashaan waa Jibriil tababaraha ciidanka Bileeska Jamaal Axmed Sante tababaraha ee kooxda dawladda hoose Hargeysa tababaraha kooxda xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga oo isaguna tababaro khibrad ku filan la daawadayaal waxa kaloo jooga tababarihii kooxda ganacsiga Yaasiina Bayre ciyaarta lama kala dhaco kooxaha heerka koowaad tababarayaal khibrad la ay tartankan haystaan iyadoo markaasi tartanka uu meel xasaasi ah imika uu galay wareegii labaad uu marayo ciidanka asluubta ayaa kubadda soo bilaabaya kubadda dibadda ayaa ay u baxday daawadayaal ciyaarta dadweyne aad u fara badan ayaa Hargeysa Stadium iyaguna ka daawanaya markaasi taageersan dhinaca kooxda cadaaladda ayaa aad taageerayaal aad u fara badan wadata galabta Hargeysa Stadium waxa isku wajahay kooxdii heerka koowaad ee ciidanka asluubta oo 2 gool leh halka hal gool ay leeyihiin kooxdii wasaaradda cadaaladda gruubkan waxa hogaaminaysa ilaa haatan kooxda dawladda hoose Hargeysa oo 4 dhibcood gruubka ku fadhida halka 3 dhibcood ciidanka asluubta uu haysto hal dhibic ay haystaan wasaaradda cadaaladda gruubkan ayna ilaa haatan wax dhibco ah haysan kooxda heerka 3aad ee Waaberi ciyaartooyga cadaaladda ayaa kubadda iminka gacan tuurasho tuuraya qaybtii dambe ayaa daawadayaal idiga xasuusinaya in 2 gool iyo hal la ismarinayo oo Hargeysa Stadium ciyaartuna ka socoto idinkoo si toos ah uga fiirsanaya
honset sports one oo cayaaraha loogu talagalay cayaartooyga seexato waa farsameeyey si xirfad leh waaba dhaafay cayaartooygaasi sidii caalamka ayaaba ugu gasaya kubadda cayaartooyda caasimadda ku cayaaraya khibrad badan ayaa ka muuqata naasir ronaldo ayaa kubadda haysta oo cadaaladda axmed walay baso waa cayaartooyga galabta player of the matchka kooxda ciidanka asluubta waa cayaartooyga ugu wanaagsan oo kubadaha si fiican u dhammaystiraya hadday noqoto baasaska orodka cayaartooyga axmed walay baso waa lambarka shanaad ee ciidanka asluubta dhexda ayaanu ka ciyaaraya xamse yareeya ayaa kubadda wata xamse cayaartooyga xamse waa keena dhiiblacayn laakiin waa la soo difaaco cayaartooyda cadaaladda ayaaba u babacdhigaysa samater xaashi ayaa kubadda haysta samater xaashi ayaa khalday kubaddaasi lambarka 10aad ee kooxda cadaaladda ayaa qalad galay kubad dheer ayaa u laagay nasiib darra dibadda ayaa ay garoonka uga baxday waa soo laagay mar labaad cayaartooyga idriis axmed xamse yare ayaa kubadda raacdaynaya cayaartooyga xamse ciidanka asluubta lambarka 11aad waa laga qaatay cabdirisaaq ayaa kubadda wata cabdirisaaq axmed walay baso ayaa kubadda haya cayaartooyga lambarka shanaad gacan tuurashaaba ugu baxday kubaddaasi kooxda cadaaladda ayaad mooddaa inuu wakhtigu la jiro oo kubadda si fiican isugu dhiibanayaan qaybtii dambe halka ay difaacanayaan dhigooda heerka koowaad ee ciidanka asluubta oo 2 gool la cayaarta qaybtii horena dhaliyay daawadayaal shushu ayaa kubadda haysta cayaartooyga cadaaladda waa baasay kubad fiican samater xaashi laa kubaddaasi waa uu sigay cayaartooyga samater xaashi kubad laag dheero gool taargadu dilinta 18 bartanka ka laagay nasiib darra ma ay dhalan kubaddaasi cayaartuna waa 2-1 daawadayaalo waxaad mooddaa in galabta gruubkii afraad ay iswajaheen 2 kooxood oo markaasi isu qalma cayaartuna aad moodday in si fiican la iskula fahmay qaybtii dambe oo kooxdii cadaaladdu ay qolka labiska tala fiican ka soo qaateen tababare axmed yaasiin xasan oo tababaraha heerka labaad ee kooxda cadaaladda wata 2 bedel ayaa uu keenay walow tababara faysal muuse oo kooxda ciidanka asluubta heerka koowaad wataana uu keenay isaguna 2 bedel cabdirisaaq ayaa haysta waa wasaaradda cadaaladda ee xamse yare ka dafay waa loo dhiibay axmed walay baso ayaa kubadda wata yalla ya axmed dhiiblayn baa keenay kubaddaasi xamse cayaartooyga xamse ayaa kubad cajiiba loo baasay waa uu dhammaystiray nasiib darra ma ay dhalan halac bila ayaa kubadda qaatay waa laga dafay si xooggan ayaaba halac bila kubadda looga qaatay samater xaashi kubad fiican waa soo furay kubad dheer waa keenay garoonka bartankiisa cayaartooyga ayaa haysta ciida cadaaladda waa idriis axmed daanyere ayaa ku dheggan oo difaaca galabta kooxda asluubta waa isku dhiibanayaan kooxdii wasaaradda cadaaladda oo markaasi ididiilo fiican qaba si daynta lagu leeyay 2 gool ay isaga soo badaan daawadayaal cayaartuna waa 2-1 oo qaybtii hore 2 gool ciidanka asluubta heerka koowaad ayaa dhashaday koorna ay laaganayaan kooxdii cadaaladda wasaaradda cadaaladda ayaa koorna heshay daawadayaal taageerayaal fara badan oo taageersan cadaaladda sidaan hore idinku sheegay daawadayaal ayaa ku dhawaaqaya gool cayaartuna waa 2-1 wakhtigii qaybtii dambe oo gebagabaa cayaartu wakhti waxay gashay xamaasada galabta hargeysa stadium cayaartooyga keenay laag dheer laakiin waa difaacayaan kolba waa socotaa kubadda faawal ayaa loo qabtay kooxdii ciidanka asluubta cayaartooy baa dhaawacmay salamaad cayaartooy ayaa adinka midig uu ku dhacay isagoo madaxa uu kaga dhacay waa cayaartooyga ciidanka asluubta cayaartooyga ayaa kubadda dul taagan ee ciidanka asluubta waa idriis axmed daanyeero lambarka 13aad oo dhinaca bidixa waa soo baasay sacad amiin coday ayaa loo baasay sacad amiin coday waa weerarkaaba keenay kubaddaasi iyo waxaa si fiican u maamulanaya iminka cadaaladda cayaartooyga cadaaladda xamse yare waa laga qaatay samater xaashi kubaddaasi waa la raacdaynayaa orod badan cayaartooyga arsha kubaddaasi waa ay ka baxday cayaartooyga samater xaashi ayaa kubad dheer tuuray nasiib darra kuma uu guulaysan inuu cayaartooygaas Shucayb Arsha helo kubaddaasi waa ay baxday ciidanka asluubta ayaa kubadda wata axmed walay baso cayaartooyga sacad amiin coday ayaa kubadda tuuraya ciidanka asluubta lambarka 16aad kooxda ciidanka asluubta ayaa gacan tuurasho soo tuuratay seexato halac bila ayaa baasay
ciyaartoyda ayaa kubadda raacdaynaya lambarka 6 jaanis u helay kubaddaasi waa ay gashay mar labaad idris axmed daanyero ayaa kubadda wata ciidanka asluubta ayuu ka tirsayay lambarka 13aad kubaddaasi waa ay baxday gacan tuurasho ayay tuuranayaan ciyaartoyda kooxda ciidanka asluubta ee heerka koowaad ciyaarta waxaa moodaa in qaybtii dambe ay dardar fiican la soo galeen ciyaartoyda wasaaradda cadaaladda ee heerka labaad weerar ayaabay ku yihiin kooxdii heerka koowaad ee ciidanka asluubta walow ciidanka asluubta uu ku naalloonaya 2 gool oo qaybtii hore uu daawadayaal ka dhashaday ciyaarta 9 nin ayaa uu ku ciyaaraya 10 nin aan idhaahday goolhayaha iyo 9 gudaha maadaama ciyaartoy casaan laga siiyey oo kooxdii 11 qof ee ciidanka asluubta uu ciyaartoy dibadda uga baxo inay dhammaystirnayn 10 qof ayay ku ciyaarayaan iyagoo isku dayay inay Hargeysa Stadium guul kala carraabaan si ay gruupka afraad u hogaamiyaan ama group D وصوب باسين سمتر حاشي عدالة أيها هيستي كوحدة عدالة حمزة كروس أيها كبدا معمولانيا ولا صوتوري عيارتويقا حمزة كروس واسعتا عيارتويقا أحمد ولي بصو وعيدا كاسلوبتا أحمد ولي بصو أيها كبدا هيستا وكيني حمسير أيها كبدا هيستا عيارتويقا حمسير عدي أيها كبدا صوصاري عبد الرزاق لحظة بقرونك أيها كبدا مريسا عيارتويقا وقاتين مر لبعض عيدا كاسلوبتا عيار في عنا أيها كموقتا هافسيد أيها قلن عيارتويدا كو عياريسا وزارة عدالة كار هرودا أيها لسي عيارتويقا كار هرودا أيها لوتاقا عيارتويقا لمبرقا صنية طبانادي صلو وكوحدا عيدا كاسلوبتا أيها كار هرودا قادتي عيارتويقا صلي الدفاع كعيار يدحي أيها لسي كار كهرودا داو ضيال عيارتنا والله أيها لو عيدا كاسلوبتا الله بقول لي عيارتويقا يديرس أحمد دانيير اللاقي كوبداسي لاقدير si fiican waa u soo gashay dilinta waa la wada hirdamayayo kooxda waxa haysata imika cadaaladda ayaa kubadda difaacanaysa gacan tuurasho ayay u baxdo ciidanka asluubta ayaa gacan tuurashadaasi samaynaya imika waana kooxda heerka koowaad ee 2 gool qaybtii hore dhalisay ciyaartuna waa ay adag tahay waqti xasaasi iyo gabagaba ayaa la maraya daawadayaal difaac bay ku ciyaarayaan ciidankii asluubta maadaama ay 2 gool leeyihiin qaybtii dambe ciyaarta waa keeneen mar labaad kubadda baas socda baas isku dhiibasho fiican ciyaartoy ayaa kubadda si fiican looga xidhiidhsanaya la challenge gareeyay waa ciyaartoyga ku ciyaaraya lambarka 10aad ee ciidanka asluubta halaac bile oo bedel ku soo galay qaybtii hore ciyaarta hafsayd ayuu galay ciyaartoyga Idris Ahmed Daanyero ayaa hafsayd galay ciyaartoyga Idris Ahmed Daanyero waa ciyaartoyga dhanka bidix ee ciidanka asluubta lambarka 13aad عبد الرزاق ayaa kubadda imika bilaabaya kooxda cadaaladda waa difaaca cadaaladda lambarka 22aad ciyaarta waxaad moodaa kooxda cadaaladda qaybtii dambe inay natiijo fiican ay la imanayaan hal gool dhaliyeen iyadoo 2 lagu lahaa haddana weerar fiican ay hor la ay qaadayaan ciyaarta daawadayaasha Hargeysa Stadium si toos ah uga daawanaya waxa aad moodaa inay si toos ah u taageersan yihiin kooxda cadaaladda oo markaasi maanta taageerayaal fara badan ka heshay Hargeysa Stadium balse 2 gool lagu leeyahay qaybtii dambe 2-1 natiijadu ay tahay ciyaarta waxa si toos ah uga qayb qaadanaya ciidanka Bileyska Somaliland oo nabadgelyada Hargeysa Stadium iyaguna qayb ka ah iyadoo ciyaarahana si toos ah uga socdaan Hargeysa Stadium kubadda ayaa imika meel xasaasi ah maraysa handball ayaa ciyaartoy kaga dhacday garsooraha ma uu qaban وصوباسي أرشا كوبداسي والله قاتي بس دقن عيارتويقا إدريس أيا كقاتي هلا بلا أيا هيستا لمبر كتوبانات حمزة أيا كوبدا باسي هلا بلا أيا هيستا عيارتويقا لمبر كتوبانات عيدا كأسلوبتا كوحدة عيدا كأسلوبتا حمزة كروس أيا قبصدو كترسان عدالة عيارتويقا عدالة أيا كوبد أرد بدن عيار سو اسكودي بس ددو صوب لوضي كوبد في عنا أيا وتا عيارتويقا وعيارتويقا سيحته والدفاع عدن كبديح والله تورا عيارتويقا وفول لا واي سعوتا كوبداسي اوت دibadda ayaa ay u baxday foul ayay noqotay kubaddu out weeye waa ay baxday out bay noqotay kubaddaasi oo dibadda ayay garoonka uga baxday garsooruhuna foul ma uu qaban ciyaartoyda cadaaladda ayaa dalbanaya in foul markaasi
loo qabto ciyaarta ayaa hakad gashay ciyaartooyga ayaa kubadda soo laagaya waqtiga ayaabay ridayaan ciidanka asluubta oo markaasi ciyaarta kubadda ka dhiganaya markaasi kubaddu marka ay baxdo ma soo qabsanayaan marka la laagayo hakad ayay gelinayaan si caajisnimo kooxda asluubta markaasi labada gool ilaashanaysa faawul ayaa loo dhigay markaa kooxda cadaaladda waqtigii xasaasiga ayaa la galay oo gabagaba ah qaybtii dambe cadaaladdu waxay rabtaa inay barbaro la carrowdo halka ciidanka asluubta guusha uu ilaashanayo oo gruubkan rabo inuu ku hogaamiyo 6 dhibcood ciyaartooyga ayaa baasay samatar waa soo baasay daayeer ayaa ka difaacay halac bile ayaa haysta halac bile bartanka garoonka la soo galay lambarka 10aad ciyaartooyga halac bile waa ay ku baxday kubaddaasi gacan tuurasho ay tuuranayaan ciyaartooyda wasaaradda cadaaladda waqtiga oo gabagaba ah ciyaartu waa 2-1 ciidanka asluubta ayaa 2 gool la kooxaha heerka koowaad ee caasimadda ka tirsan hal gool waxa leh kooxaha heerka labaad kooxda cadaaladda midabka casaanka ku ciyaaraysa shushu ayaa soo baasay mawliid kayse ayaa kubadda la wada cidhiidhsaday mar labaad iyo ciyaartooyga lambarka 19 naasir ronaldo faawal ayaa lagu galay ciyaartooyga ciidanka asluubta ciyaartooyga cabdiqaadir aan idhaahdee coday ayaa dhulka yaalla faawal ayaa lagu galay kaadh huruuda ayaaba la siiyey ciyaartooyga xamse kruust waa ciyaartooyga lambarka 6 kaadh huruuda ayaa la siiyey ciyaarta ayaa waqtigii xamaasadda ee gabagabada ku sii siqaysa iyadoo ciidanka asluubtu 2 gool leeyahay daawadayaal dhanka kale cadaaladuna ay 1 gool leeyihiin waana gruubka afraad oo maanta soo khatimaya wareegoodii labaad ee ciyaarahan axmed wali baso waa soo laagay kubaddaasi ciyaartooyga halac bila ayay ku baxday ciyaarta kooxda cadaaladda ayaa qaybtii dambe fiicneyd oo markaasi rabtay inay iska soo bedel 2 gool ee lagu leeyahay nasiib darro waxaa ka difaacday ciidanka asluubta oo 10 ciyaartooy Hargeysa Stadium ku ciyaaraya cabdirasaaq ayaa kubadda kaantarooshay shushu ayaa loo baasay samatar xaashi lambarka 10aad ee wasaaradda cadaaladda samatar xaashi samo kubaddaasi halfside ayay ku dhacday ciyaartooyga laagaya idris axmed baa laagaya waa daayare yaasiin cadaani baa kaantarooshay kubadda ciidanka asluubta wata kubadda faawal baaba loo qabtay kooxda ciidanka asluubta faawal ayaa loo dhigay kooxda ciidanka asluubta dilinta 18 ayaa loo dhigay oo bartanka free kick bay laaganayaan ciyaartooyda heerka koowaad ee kooxda ciidanka asluubta oo 2 gool dhalisay qaybtii hore ciyaarta haatanna ciyaarta hogaaminayso 2-1 natiijada ciyaartu tahay daawadayaal waxaa si toosa uga daawanaysaan Home Cable TV Honsat Sports 1 ayaad ciyaarahan ka daawan kartaan waa ciyaaraha caalamka iyo kuwa dalka iyo geeska Afrika ba si toosa ayaad ugala socon kartaan waa keenay mar labaad axmed walay baso kubaddaasi waa ay baxday waxaa baahintan live-ka ku deeqay mas'uuliyaddeeda TV-ga caalamiga Home Cable TV oo Honsat Sports 1 oo ciyaarahan laga daawan karo barta YouTube-ka iyo Facebook-kana waad kala socon kartaan daawadayaal baahintan waxa inoogu jira cigaal oo isagu kameramaanka maxamed gaabane siidow iyo farsamo yaqaan cabdisalaan yaambro injineer daa'uus ibraahim shiine oo ka tirsan khubarada TV-ga mubaarig maxamed cabdi bukaase iyo sagal guuro oo ka tirsan wariyaasha TV-ga caalamiga Home Cable TV waxa baahinta Honsat inoo fadhiya cabdiqaadir Suleymaan Cabdilaahi Coday ciyaartana waxa idinka imanaysaa Hargeysa Stadium oo si toos ah uga baahinayna markaasi ama live ah waxaana ciyaarahani ay ka socdaan Hargeysa Stadium oo xidhiidhka kubadda cagta ayaa soo qaban qaabiyay tartankan shirkadda Telesom oo maalgelisay tartanka telefishinka caalamiga Home Cable TV oo ku deeqay in laga daawado marka ciyaarahan mas'uuliyadda baahintan ciyaarta ayaa iminka gabagaba ah daawadayaal gruubkii afraad ayaa dhammaystay wareegiisii labaad dawladda hoose 4 dhibcood ayay leedahay wasaaradda cadaaladdu dhibic ayaa ay leedahay ciidanka asluubtu 3 dhibcood ayaa ay leeyihiin waa beri dhibca la'aan ayay gruubkan ku jirtaa walow ciyaaro fiican ay la dheeshay dhigooda markaasi ciidanka asluubta iyo dawladda hoose Hargeysa
ciyaartoyda cadaaladda xamse kuruus ayaa kubadda wata wakhtigoo gabagabaa cabdilaahi ayaa loo baasoo kabtanka kooxda cabdilaahi wallaag dheer baa keenay garoonka bartankiisa arsha ayaa kubadda haysta ciyaartoyga shucayb arsha shucayb waa cadaaladda waa lambarka sagaalada waana weerarka waa soo maray ciyaartoyga shucayb arsha shucayb yalla yaa shucayb kubaddaasi waa difaacay mawliid kayse ayaa ka difaacay ciyaartoyga axmed walay baso ciidanka asluubta ayaa kubadda wata axmed walay baso ciyaartoyga lambarka 14aad ee ciidanka asluubta kubaddu waa ay baxday gacan tuurasho ciidanka asluubta ciyaartoyga idriis axmed daanyeer ayaa kubadda tuuraya ciyaarta wakhtiga ayaa gebagaba daawadayaal waa ciyaartii ugu dambaysay gruubkan oo markaa wareegeedii labaad ayaa soo dhammaaday waa gruubka afaraad waa gruub D waxaa ku wada jira dawladda hoose hargeysa wasaaradda cadaaladda ciidanka asluubta iyo kooxda waaberi haddii ay badiyaan markaa galabta ciidanka asluubtu 6 dhibcood ayay gruubkan ku hogaamin doonaan halka dhigooda heerka koowaad ee dawladda hoose ay ku xigto 4 dhibcood leedahay wasaaradda cadaaladdana 1 dhibic ayaa ay haysataa lugtii hore ayay barbaran la soo gashay kooxda dawladda hoose hargeysa kubaddaasi waa ay baxday ciyaartoyda cadaaladda ayaa kubaddaasi soo tuuraya iminka xamse kuruus ayaa tuuraya ciyaartoyga xamse kuruus ciyaartu waa gabagaba wakhtigii xasaasiga ayay gaadhay ciyaarta waxaad mooddaa in tababara faysal muuse ildab uu keenay khibrad fiican kadib markii casaan laga siiyey ciyaartoy ayuu haddana gadaal u galay kooxdii heerka labaad ee cadaaladda difaac badan ayaa uu muujiyey haafkii dambe maadaama hal ciyaartoy ka maqnaa qaybtii hore ciyaarta oo bilowna kaarhka cas la siiyey lambarka 8aad ee xamse jigijaan tababara faysal muuse ildab waxa uu u sheegtay khibrad iyo xeelad ciyaareed isagoo galabta ku badiyeyba 10 ciyaartoy aan idhaahdee maxamed ayaa kubadda haysta lambarka 14aad waa kooxda ciidanka asluubta halac ayaa loo baasay yaasiin cadaani ciidanka asluubta ayaa kubadda haysta ciyaartoyga maxamed yaasiin cadaani ayaa haysta ciyaartoyga halac wasaaradda cadaaladda xamse kuruus kontra attack baa soo qaadeen ciyaartoyda wasaaradda cadaaladda ronaldo ayaa kubadda raacdaynaya goolwadaha ayaabay u tagtay goolhayaha koowaad ee ciidanka asluubta sacad ayaa kubadda labada gacmood si fiican ugu qabsaday goolwadaha ayaa soo laagay bartanka garoonka ayay kubadda timid ciyaartoyga cadaaladda cabdirisaaq ayaa haysta cabdirisaaq ayaa kubadda wato si fiican u soo maamulanaya ciyaarta cabdirisaaq kubaddaasi waa uu khalday ciyaarta waxaad mooddaa inay khibrad cayaareen ciidankii asluubta oo kubad fiican galabta soo bandhigay waana kooxdii labaad ee 10 qof ku badisa dawladda hoose ayaa hore ciyaartoy casaan looga siiyey 7 iyo 2 bay ku badiyeen asluubta casaan ayaa ciyaartoy laga siiyey qaybtii horeba haddana 2 gool iyo eber bay haafkii ku rideen waa la isku soo noqday haddana waa dhacday in markaasi ay ilaa haatan natiijo fiican haystaan ciidanka asluubta ciyaartoyga seexata ayaa kubadda la soo galay dilinta wakhtigoo gabagabaa alwaqtul yamur seexata kubaddaasi goolwadaha ayaa qabsaday goolwadaha ayaa si xirfad la u qabsado khibradii ka muuqato goolhaya sacad axmed walay baso waa soo baasay xamse ayaa uu baasay ciyaartoyga xamse waa laga dafay kubaddaasi waa ay baxday ciidanka asluubta ayaa gacan tuurasho tuuranaya kooxda ciidanka asluubta sacad amiin coday ayaa kubadda tuuraya difaaca dhanka midig yaasiin ayaa difaaca soo gala weerarkii kooxda asluubta maadaama ilaashanaya natiijada ciyaarta seexato ayaa kubadda tuuraya lambarka 13aad ciyaarta waa gebagabo daawadayaal waana ciyaartii gruubka afraad ay wada dheelayeen kooxdii cadaaladda ee heerka labaad iyo ciidanka asluubta friikig ayay laaganayaan jaanis ciyaarta oo wakhtigii gebagabadaha friikig ayay laaganayaan ciyaartoyda cadaaladda ama xanaaqad dhanka waxay ka laaganayaan bidix ee markaasi dilinta 18 samater xaashi ayaa soo laagay waa soo gashay kubaddaasi goolwadaha ayaa qabsaday goolhayaha wasaaradda goolhayaha aan idhaahdee ciidanka asluubta ayaa kubaddaasi qabsaday
goolhayaha ciidanka asluubta ayaa kubaddaasi badbaadiyey ciyaarta iminka waxaa ila joogta sagal guuro oo ka tirsan wariyaasha tv-ga caalamiga ah on cable tv oo markaasi ciyaartan martiina ugu daawashadeedana si toosa ula socotay iminka goolwadaha ayaa dhaawacmay ciidanka asluubta ayaa ka dhaawacmay goolwadihii nasiib darro waqtigii iyo gabagabaa bal sagal ayaa ku soo dhaweynaya daawadaya mubaarig bukaase aad iyo aad baad u mahadsan tahay aad baan kugu mahad celinaynaa sida wanaagsan aad ciyaartan u xidhiidhinayso haddaan ka soo noqdo intaasi runtii halkan waxaa ka socota ciyaar aad iyo aad u qurux badan sidaynu sheegnay markii horeba amaynu horeba ka soo sheegnay labadan kooxood weliba waxaad moodaa kooxda cadaaladdu inay soo bandhigto ciyaar aad u qurux badan isla markaana ay nafla caarid ku soo gashay nuski dambe ciyaarta isla markaana dee waad arkaysayo gool ayay maxaa dhahdaa say daawadayaashuba la socdaan ay iska soo goysay ama ay dib u soo ceshatay halka markaa waxay isku hirdiyayaan labada kooxood inay kooxdana guul kala tagto garoonka oo markaasi aanay maxaa dhahdaa garoonka aan guusha aan goolka dee mar dambe aan iyagana laga dhalin halka ay kooxdana doonayso inay gool labaad ay dhaliyaan oo ay barbara keento laakiin way u suurageli weyday oo dee waxaa laba ciidan oo is adagba laba kooxood oo adag aan idhaahde ayaa foodaystaray runtii waxaa ka socota ciyaar aad iyo aad u qurux badan weliba waxaad moodaa dadka taarabuunka fadhiyaana inay xamaasad aad u fara badan muujinayaan iyagoo weliba kooxda cadaaladda aad u taageersan oo maxaa dhahdaa marka xagga loo dhaqaaqaba goolta ku dhawaaqaya marka ciyaar runtii aad iyo aad u qurux badan ayaa ka socota garoonka daawadayaashuna si qurux badan bay ula socdaan ayaan rajaynaynaa bal waxaynu eegaynaa ciyaartu iyadoo daqiiqada uun ka harsan yihiin sida ay ku dhammaato isla markaana waxa la iskula soo noqdo waayahay ciyaarta ayaynu ku soo guda noqonaynaay waxay ahayd wariye sagal guuro oo ka tirsan wariyayaasha tv-ga caalamiga ah on cable tv ciyaartuna waxa ay maraysaa wakhtigii gebagabada ahaa waxaa soo laagaya ciidanka asluubta daqiiqada yar ayaa ka hadhay hal daqiiqo wax ka yar ciyaarta kadib markii goolwadaha ciidanka asluubtu dhaawacmay waa soo kacay kubadda ayaa buu dul taagan yahay ciyaartooyga idriis axmed daanyero ayaa laagaya waxaad kala socotaan ciyaartan tv-ga caalamiga ah on cable tv honsad sports one ayaad ciyaarahan ka daawan kartaan waxaa ku jira baahitan lifeka injineer daa'uus cabdisalaan yaambaro oo farsamo yaqaanada ka mida ibraahim shiine cigaal maxamed gaabane siidow mubaarig maxamed cabdi sagal guure dhammaantaya waxaanu idin leenahay daawadayaal cayaarahan si toosood ugala socon kartaan honsad sports one oo baahinta uu inoogu jiro maamulka honsad cabdiqaadir coday markaasi cabdiqaadir suleymaan ciyaarta ayaa iminka bartanka garoonka soo gashay iyadoo wakhtigii gebagabada ah ku sii siqayso garsoorka unaan ka sugna markaasi inuu ku dhawaaqay inay ciyaartu dhammaatay ciidanka asluubta ayaa kubad laag dheera keenay iyagoo iska difaacaya kooxda cadaaladda xamse yar ayaa kubadda haysta ciyaartooyga xamse ayaa kubadda raacdaynaya ciyaartooyga xamse takal ayaa lagu qabtay waaba uu ka booday ciyaartooyga xamse kubad fiican ayaa uu keenay strikerka ciidanka asluubta oo beddel ku soo galay qaybtii dambe uu keenay tababara faysal muuse ildab oo loo yaqaano faysal dheere waxa uu layliyaa kooxda ciidanka asluubta ee heerka koowaad waa soo baaseen mar labaad samatar xaashi kooxdaasi waxay imika raacdaynaysaa cadaaladda kubadda dilinta waa soo gashay mar labaad kubaddaasi waa socotaa kubaddu si xirfadla ciyaartooy baa u soo qabsaday mawliid kayso kabtanka kooxda ciidanka asluubta cabdiqaadir coday ayaa kubaddaasi saaray gacantuurasha ayay u baxday cayaarta waxaan sugaynaa wakhtigii gebagabada ahaa daawadayaal galabta cayaartan waxaa ku badnaa ciyaartooyda aad u dhaawacmayey wakhtiga hakad la gelinayey waxaa lagu daray wakhti 3 daqiiqo cayaartii ciyaarta ayaa iminka waa la soo bilaabay mar labaad aynu ku guda jirnaayo waxaa soo laagaysa cadaaladda iyadoo wakhtigii gebagabada ciyaartooyga mawliid kayse waa laga daba baxay kubaddaasi ciyaartooy baa kubadda haysta bartankay soo gashay difaaca solo ayaa ka difaacay solo ayaa kubadda ka difaacay ciyaartooyga solo ayaa kubadda ka difaacay taageerayaal aad u fara badan oo kooxda cadaaladda nasiib darra 2 gool lagu leeyahay ayaa ciyaarta ku dhawaaqaya halkudhegiye ay tahay gool ayay ku dhawaaqayaan daawadayaal xamse yare ayaa wato ciidanka asluubta lambarka 11aad halac bilaa loo baasay shushuu ayaa ka difaacay ciyaartooyga cabdilaahi waa soo difaacay mar labaad cadaaladda ayaa weerar imika cadaaladda ayaa wakhtigii oo gebagabaa idriis axmed daanyero waa baasay halac bilaa loo dhiibay kubadda
ciyaartooyga xamse yar raacdaynaya xamse waa soo galay dilinta yallaya xamse kubaddaasi waa ay baxday laag dheer baa laagay xamse laakiin ma uu ku guulaystay inuu dhaliyo daawadayaal ciyaartooyga lambarka 5 ayaa kubadda wata waa kooxda axmed walay baso waa ciidanka asluubte waa soo bilaabeen mar labaad ciyaartooyga maxamed ayaa kubadda wata waa soo baasay axmed walay baso naasir ronaldo cadaaladdaa wata kubadda ciyaartooyga naasir waa la raacdaynayaa kubaddaasi faawal ayaa loo qabtay kooxda ciidanka asluubta ayaa faawalkaasi laaganaysa daawadayaal ciyaarta iminka gacan tuurashay tuuranayaan kooxda cadaaladda garsooraha afraad ee sabistihiidka waqtigii dheerigaa baa dib loogu noqday daawadayaal oo la keenaya calaamadda waqtiga dheerigaa waxaa lagu daray 2 daqiiqo ayaa lagu daray daawadayaal 2 minutes ayaa lagu daray daawadayaal 2 daqiiqaa lagu daray ciidanka asluubta iyo wasaaradda cadaaladda oo 2-1 mawliid kayse ayaa kubadda haysta ciyaartooyga mawliid kayse ayaa kubadda haysta waa dhaawacmay kaar baa loo taagay samatar xaashi ayaa ku galay qaladkaasi oo lambarka 10aada sagalay waxaad moodaa ciyaarta in waqtiga ay ridayaan kooxda ciidanka biliiska oo galabta inta badan ciyaartooydooda dhulka yaalaan waana taagtika ciyaaraha caalamiga la ciyaaro iyo kuwa dalkaba waana ciyaartooyda inta badan waxa ay caadaystaan marka hal ciyaartooy la dheeriyay inay khibradan oo kale la yimaadaan oo ciyaartay qayb ka tahay in waqtiga la canaado ama la habsaamiyo bal ka waran tarabuunadu ma ku qanacsiinaya ma daawadayaashu runtii mubaarigo waad moodaa oo waxaad moodaa inay kooxda ciidanka asluubtu ay aad iyo aad hakad u gelinayaan ciyaarta halkii qoladana sidii horeba aynu u sheegnay ay doonayaan inay maxarday meesha ay guusha kala tagaan markaasi de qoladan fadhida garoonka ama ciyaarta daawanaysana waad arkaysaa waxay ku dhawaaqayaan gool ayagoo aad u taageersan kooxdan cadaaladda isla markaasi waxaad moodaa inay qoladani la yimaadeen xirfad aad iyo aad u cajiib badan oo marka ay cagta u dhigayaan kubadda si ay meesha guul ugala hoydaan laakiin waxaa mucjisaa iyadoo ay kooxdan laga saaray inaan isla markaasna laga siiyo calaamadda cas laga siiyo qaybtii hore ay maxaa dhacday haddana la yimaadeen dee xirfad cajiib oo ay durtaba doonayeen inay kala huleelaan garoonkan galabta 2 gool ayagoo kaga badiyay kooxda wasaaradda cadaaladda isla markaasna ay qoladaasina hal leedahay kuwana ay 2 haystaan inay guushaasi halkaasi kala huleelaan ayay damacsan yihiin markaa saasaa malaha ay doonayaan inay waqtiga dib u dhigaan oo ay kubadda waxaan ku cagajiid ku ciyaaraan oo waayo guul baa u muuqata ayaga marka bal waynu eegaynaa ciyaartana 2 daqiiqo ayaa hadda lagu daray bal labada mirar wixii ka soo kordha ayaynu eegaynaa iyo sida ciyaartu u dhacday inay qoladani dee gool labaad ay dhashato isla markaasna ciyaartaasi barbardhac ay noqoto galabta waayo ciyaartu iminka waa 2 daqiiqa lagu daray muran badan baa ka dhashay haddana ciyaartii 2 daqiiqa waa lagu daray oo 2-1 ayay maraysaa ciidanka asluubta ciyaartooygii lambarka 4 ayaa dhaawacan waa ciyaartooyga mawliid kayse waana kabtankii kooxda waqtigii 2 daqiiqe lagu daray ayaa waxa dhacday in haddana uu isagu dhaawiciisii garoonka la jiifsado kadib gargaarka ayaa dibadda uga saaray gargaarka degdega ama dhakhtarka caafimaad ee tartankan markaasi goobjoogowa bal ciyaartii baa dib loo bilaabay iyadoo waqtigii lagu daray waqti iska gabagaba ay tahay Hargeysa Stadium galabta ciyaartan dhex martay 2 kooxood khibrad baa la isku sheegtay kooxnim hal ciyaartooy baa ka maqnaa waa ay gabadeen difaac badan bay sameeyeen way ilaashadeen 2-1 ilaa haatan 2 daqiiqo ayaa ilaa imika socda
ciyaartooyga xamsi gool xamsi lambarka 11 ayaa dhaliyey kubaduu ka xaday difaaca cadaaladda waqtigoo gabagabaa cayaartiina sidaasay ku soo idlaan rabtaa 3-1 ciidanka asluubta waa waqti catiiba ayaa uu dhaliyey daawadayaal cayaartuna waxa ay maraysaa 3-1 iyadoo cayaartooyga ciidanka asluubta oo ay ku ciyaarayeen 10 cayaartooy tababare Faysal Muuse oo isagu garoonka soo galay oo dabaaldegaya tababaraha ciidanka asluubta oo ku dabaaldegaya natiijada cayaarta isagoo kubad farsamada uu helay cayaartooyga xamsi ee lambarka 11 ee ciidanka asluubta kaarka huruuda ayaa la siiyey cayaartooyga lambarka 11 kaarka huruuda ayaa la siiyey tababare Faysal Muuse kaarka huruuda ayaa la siiyey tababare Faysal Muuse kaarka huruuda ayaa la siiyey tababaraha ciidanka asluubtana kaar ayaa la siiyey daawadayaal cayaar xamaasad la ay ahayd galabta maadaama ay soo gaadhay tababarihii horeeyay tartanka kaarka huruuda la siiyo cayaartuna waxa ay maraysaa 3-1 ciidanka asluubta ayaa 3 gool oo kubad fiican galabta cayaaro iyagoo hal cayaartooy dibadda uga maqan yahay waqtigii gabagabada ahna sidaas uu ku soo idlaaday garsoorka ayaan sugnaa waxaynu sugnaaba waa cayaartoo dhammaata samatar xaasi waa laagaya kubaddaasi oo lambarka 10 cayaartooyga samatar xaashi samatar waa ay baxday kubaddaasi waqti gabagabaha waqti xaaladdu ay iska adag tahay garsoore Yuusuf Dubta ciyaarta imika waa baaseen mar labaad xamse kuruus ciyaarta wasaaradda cadaaladda iyo ciidanka asluubta waa ay dhammaatay ciyaartii sidaas ayay ku dhammaatay guushna waxay raacday kooxda ciidanka asluubta halka aad kala socoteenna waa si toos uga daawanayseena waa telefishinka caalamiga Hon Cable TV Honsat Sports 1 waa aniga iyo bahda studio-ga igula sugan uu kamid yahay Ibrahim Shiine Cigaal Maxamed Gaabana Siidow Injineer Daawus iyo Cabdisalaan Yaambaro Cabdilaahi Suleymaan Cabdiqaadir Suleymaan Cabdilaahi Coday ciyaartuna waxa ay ku dhammaatay 3-1 guushna waxay raacday ciidanka asluubta waa Mubaarak Maxamed Cabdi Bukaaso idila bye bye